السلام عليكم ورحمة الله walaalyaal waxaan la joogaa walaalkeen guduudow oo ah muwaadin Soomaali isla markaasna waxa weeye nin dhalinyaro ah guduudow iga waran walaal xalay waxa lagu yiri ciyaal baa ku bacbacsaday oo dhagax kula dhacay maxaa sababay in ciyaal ku dhagxiyaan walaalo waxaa sababay in maxay aheeday caruurtaasi i dhagxiyaan i baabacsan dusheena bara fara badan oo xoog badan ay u geystaan waxaa sababay ay igu eedeeyaan inay yiraahdaan caruurtaad farcad cuntaa oo maxay lix caruur baad cuntay oo maxay aheeday lagu haystaa iyo waxyaabo lamid iyo aflagaadooyin fara badan ay ii geysteen iyo xalay iyo fowdo halkaasi ka dhacday oo ay tahay mid aan maleynaa in la soo abaabulo laga dambeeyay ay tahay marka ciyaalka yararka markay ku arkaan basaas ku bacsadaan saas i bacsadaan xaafadaha markaa maraysa waa ku dhagxiyaan xaafadaha markaa maraa waa lee dhagxeeyaa waa lee fowdeeya dhibaatooyin fara badan baa kaa kulmaa hase yeeshee waxaan iska yidhahdaa waa iska caruura kuleeba dhib ma lehe iskaga sabira yidhaahdaa waa ilmo yar haddaa habaartidna waxa waaye haddii dhagax intay kugu dhufta habaartidna waxa laga yaaba wax gaaraan waa gaaraan waa caruurtaadoo kale kule waad dhali doontaa ayaa is leeyahay bal sabar ilaahay mataqaana maxay farajka bixinayo waa sax weeye caruur yar way ilmuhuna waa iska qaldamaan horta arrintaas dhib male ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanaad kuu siinaya haddaa ku saburtid teeda kale iga horre shaqooyinka markaad raadinaysid sidoo kale iyo maxaa kala kulantaa dadka aad shaqada ka rabtid inaad la shaqaysid dadka horto dadku aad iyo aadaan aniga aan maxay aheeday aan horta xagga shaqooyinka mataqaana haddii loo raajada dhibaatooyin fara badan ugu qabaa waa garta dadka waxay aaminsan yihiin boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 meelaha inaan aniga aan qabo baras ama juudaan ah ama dadka aan cuno ama xasaas ah ama cudur la kala qaado aan qabo oo la isku daarto ayay aaminsan yihiin marka iraado walaalo saas ma jirkan waa jirka dhashig oo caafimaad qaba oo boqolkiiba boqol wey waa huba oo haddaa doonta xataa dhaqaatiirta ugu sareysi nigeey hadda iraado ما هنوصل دبان من الواب اللي رعدينا شغالين ما لقوا ديديا سومالدنا waa dad mudmado qof cadaadeen kan waa basba la yaabayhiin ba marka aniguna waxa waa sidaas iskaga dawarsana ilaa ilaahay faraj iiga furo hadda leedin yani hadda waxa u dawarsanaysaa waa dadkii shaqadii ku diiday oo midabkaaga kuugu diiday kii ugu faquuqay oo macnaa denin iska faquuqan oo dhibaatooyin fara badan caruurtii iyo dad waaweyn qaarkood xataa ku qaba aad arkayso حقو واحد كينا وحن عنا نورمال نتكيس وباهي وحن عنا صح مركبة بيحن كنا ولا لها دت كاس إسكت برسا إلى بلاد وسيء من كاس مالنا كعديك سياسة كنا ولا مركا مالنا وحش مالنا وويدا هاي ماشي أديك أنت وما إسكبوش وارك بول أو إسكا وكاس بوش بدنا نتر كذا دي أي دبيت ما نتر كذا أي بس كروح ما يسو وحنا هاي بوحوجا دي إلهي كوسها المالير دين قد أتكتشته إلهي كوسها لنا هاي walaalkay guduuda horta iska sabir kow leh in allaha maca saabiriin shaqada dadka kuu diidaya oo kugu khasbay inaad toogsatid midabkaaga dartiisna waxa weeye iyagana ilaahay soo hadeeyay adigana ilaahay subxaana wa tacaala saburkaaga allah kugu arsaaqo caruurtan yararka oo ku dhagxinayo markay ku arkaan guduudkaagana waxa weye iska kaa dhagxinayo oo ku dhibayana waa ilmahaagii oo kale waa saa sheegtay waxa weye isaga ducey waxba ha habaarin waxna caloosha ha ugu qaadin adigana waxa weye waxaan ku dhalatay mise waa wax gadaal aad isku aragtay midabka kan waa mid u dhashay waa rabbaani oo maxay eeday xagga habi laga umay waa xaajita maado oo jirka madoweyso ilaahay qofka ugu talagalay ma jirta oo jirkeyga laakiin loogu talagalay ayaa jirta oo dhaqaatiir baaritaan fara badan ayaa sameeyey oo gobolka bari boosaas aan ku sugnaa sida dhaktar beedhabihii alaab naxariistay dhiminay ilaahay subxaana wa tacaala waa midabkaaga ku siiyey waadna ku kalsoon tahay soo maha ku kalsoona qabaa rabbigii subxaana wa tacaala saa kuu khalqay isagana waad ku kalsoon tahay soo maha ama ku kalsoon ilaahna risaqay ها الحمد لله رب العالمين wax kasta waxaan la siisan buu kalsoonida ilaahay ku qabtid iyo iimaanka ilaahay ku qabtid iyo faraxsanaanta ku faraxsan tahay waxa weeye wax kastood la kulantid marka ilmahaasna iyaga waxba dhib ha u arkin shaqadana ilaahay baa arsaaqada bixiya hadeerna ilaahay aniga ka tusay saaka ilaahay arsaaqad buu ka soo dhiibay qof walaalo qurbaha jooga baa igu yiri lacag ii sadaqade marka lacagta konton baan dadka u siiyaa u kala qaybiya marka konton kamid ah baan rabaa lacagta ku siiyo arsaaqada ilaahay ku qoray weeye u ducee in qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala wala umraadkiisa u sahlo wala u ducee ما شاء الله qofkaas muraadkiisa Allah sahlo amiin عنق يريك كحنوسنا عافيمات الله أسيو
ilaahigii sidatan ii cadeeyey ii khalqay ii abuuray waa awoodaa inuu ilaahay mataqaanaa xanuunkaas uu ka dulqaado ee allah ka dulqaado waxaan leeyahay allahuma ashfi shifaa laa yuqaadiru saqaman allahuma ashfi shifaa laa yuqaadiru saqaman allahuma ashfi shifaa laa yuqaadiru saqaman allahuma ashfi mardaana wamarda almuslimiin ayaan oran lahaa insha allah ilaahay caafimaad sariican allaha siiyo meeshii qofkaasi uu mataqaanaa uu ka cabana ilaahay ka wanaajiyo saasaan ilahay هيا ولكن أنا عندنا العتكو ورجنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أوكي إن شاء الله هذا وحن خسينا يا والعكتها صدقتها ما شاء الله العكتها هو حوي كو لابو صدق أفر شان لحد دبس ديت سجال طبعا قوية طبعا لوية طبعا ومني لو بقول وودي كان $50 والعكس صدقة هو حوي ولا إسلام كاي عيسى وكيشان مرك إلهي إذا الله هو بركيه إلهنا هو حوي مرات كل أيام الله سهل آمين لا مرات الله سهل آمين لا شيء كأمي الله كبر آمين الله وتعالى ما وحوي isaga sabur sodkeena waa garanaysaa waa iska caruur yar isaga sabur insha Allah wax ka xumaanaya ma insha Allah hadii aan mar kasta ku arkaan leeyahay soo sheegana waaxiye aan hayo waa ku keenay insha Allah waana ka warhaynaya mar kasta iska sabur wax kasta aad la kulantid iska sabur insha Allah ilaahay idinkiisa waxa weeye ajir xasanad badan baad keenaysaa maanta iyo qiyaamada ilaahay idinkiisa waxa weeye waxa laga yaabaa ilaahay kugu dambi dhaafo saburka ilaahayna kugu dambi dhaafo baa laga yaabaa marka insha Allah insha Allah أنا بحنا الله عافية عافيتنا خير الله سي اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله عافنا ما كلنا كلنا إن شاء الله بارك الله أيوة السلام عليكم.